waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle lagu soo dhaweeyay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble soo dhaweynta kadib ayaa waxa uu shir jireed ku qabtay madaxtooyada magaalada Jowhar isaga oo sheegay in xildhibaanada qaar dowlad goboleedka Hirshabelle ay wadaan afgambi ay ku doonayaan in ay xilka kaga tuuraan madaxweyne Cosoble waa kan madaxweynaha oo ka hadlaya arrimahaasi dad ayaga arrimaha cadow ku ah waxay ka shaqeeyeen inay mooshan keena balse xaqiiqda dhabta ah markaan ka hadlo waxa waaye sida aad aragtaan dhinacyadeen waxa ay dhinac taagano oo hareeraha iga taagano waa xildhibaanadii dowlad goboleedka Hirshabelle waxa waaye marka mooshanka la keenay iyo waxa la yiri go'aan waayo waa lagu dhawaaqay intaba waa baadil waana wax kama jiraan sababtuna waxay tahay waxa la jabiyay waa dastuur awalan qof keligii ah dawladda go'aan saameynaya baarlamaan inta hor fariisto xildhibaano ma dhihi karo go'aan ridaya midda labaad waxay tahay xeer iyo nidaam ayaa noo qoran dowlad goboleed ahaan dastuurku meel gaar ayaan leenahay waxa ku cadna waxay tahay iyo xeer hoosaadka mooshanka marka laga keeno madaxweynaha awalan madaxweynaha marka mooshan laga keenayo dastuurka ku qoran tahay qodobada lagu soo qabsan karo waxaan ahayn oo idin waa wax kama jiraan qodobadaas yaa go'aaminaya shir guddoonka iyo guddiga fulinta ee baarlamaanka ayaa haddana go'aaminaya inay qodobadu dastuuri yihiin sax yihiin mooshankaanuna xaq yahay lana horgeynayo baarlamaanka waxaa madaxweyne ridi karta 66 cod xildhibaanada dhinacyadii taagan yihiin nin walba xildhibaanana aqoonsigiisa fiiriya go'aanka adinku afkiina ku weydiiya hubiya qaacida ida waa Jowhar waa joogaa waxaana muxuu ahaa shirarkii golaha wasiirada noo bilaaban doona wasiirada waa la xisaabtami doona xukuumadda ciddii iska casishay oo idin axsaan ay noo suubisay kuwa ka tayo badan ayaa joogo baarlamaankana ka tirsan oo xilka bedelaya anigu been abuur ma rabo waxaan rabaa xildhibaan walba magaciisa aqoonsigiisa inaad waraysataan tiradooda xisaabisaan kala saartaan oo kala jartaan xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle hadday 66 u soo hartaan nimankaas waxay ka hadleen waa sharci walow ay sharcigu waafaqsanayno 12 maalmood anigana aan leeyahay hadday 66 meesha soo istaagtay aysan jirin hadda hortiin xildhibaano ka marqaati kacay waxa inay shaqo ku lahayd hadday taagan yihiin hadda waxa yeelaysaa caalamka iyo Soomaaliba runta loo sheegay qaar kale oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay soo dhaweeyeen hadalka madaxweyne Cosoble ayagana waxa hadaladooda kamid ahaa waxa meeshan maanta jirana xaqiiqda ay cid kasta aragto hadii 20 xildhibaan intay meel isku soo xirtay la yiraahdo waxa fadhiya 60 xildhibaan fadhida maanta ayaa la arkayaa waxa meesha ka jira xaqiiqdana cid kasta way u joodaa waxaan rabaa inaan meeshan ka cadeyno maanta sideetan xildhibaanadii baarlamaanka konton markii halkan ay joogto 30 iyo xoogaa xildhibaan ay xaq u lahayn inay keenaan mooshin lagu ridi karo madaxweynaha waxa loo baahan yahay in la helo 66 xildhibaan meesha waa غير sharci waxaan leenahay dastuurka hal la ilaaliyo nidaamka hal la ilaaliyo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle waxa ka soconayay mooshinno ay wadeen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo sheegay in ay kalsoonid ay kala laabteen madaxweyne Cosoble Ahmed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa warbaahinta Jubba Shabeelle News magaalada Jowhar